howlgalkan iyo wada jirayo aan fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo haan Mareykanka iyo lakadali horjooga ku tirsan Daesh iyadana howlgalkan uu sahay duqeynaya ku dhiidi deegaan la ka magacaabo Xariiro oo ku tirsan degmada isku shubaan oo ku tirsan gobolka Bari howlgalka mayba uu sadiyay 40 bili Abriil mayban uu sahay kooxumida dadaalada la ka weeqo awoodo kooxo ka dagaalamo dalka waan la ka badbaadiyo shacabka dawladda Soomaaliya iyo mudooyinkii ka dambeeyay dardargaliyaasi dagaal ku dhan al-shabaab iyo Daesh hadaba war ku bahay taliska militariga Mareykanka iyo xaqiijiyay isniintii shalay Haiti inay qaadeen duqeyn la ka bartilmaameedsay hogaamiye higeenka kooxda Daesh ee Soomaaliya warkaasi oo ku bahay taliska Mareykanka ee Afrika meel ka sheegay in duqeyn ku dheeday meel ka dhow tuulada Xariiro ee gobolka Bari la ka dalay Cabdixakiim Maxamed Ibrahim oo usuleen ka saay dhaqab kaasoo ahay hogaamiye higeenka Daesh Afrika meel sheegtay in Ibrahim uu mas'uul ku ahay howlgallada maalinlaaga ee qorsheynta weerarada iyo jeesida ayaan Daesh Cabdixakiim dhaqab yahay galanta midig ee horjooga Cabdulqaadir Moomen mayban oo ku muuqday muuqaal kooxda Daesh baahidi soo ka sugan buuraleyda gobolka Bari dhinaca kale wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galaan ayaa sheegay in Cabdixakiim dhaqab ilaan la saarnay baabuur kale la beegsaday duqeyn diyaaradeed inkastoo leen aqoonsan qofka kale oo la saarnay baabuurka howlgalkaas oo la ka qaarajay higeenka madaxa kooxda Daesh oo iyuu salamidahay kiila la beegsaday madaxda kooxda al-shabaab oo sukumidahay horjoogayaasha sare Axmed Godane kaasay oo la beegsaday duqeyn iyo fuliyeen diyaarado duuliyaga aan wadna droneska Mareykanka leenka sawsoona markaasay maraay jidkeeska hiraw degmooyinka Baraabe ee jalab kooxda Daesh ee Soomaaliya yamayba hogaamiye ku ay horjooga Cabdulqaadir Moomen oo soo horay han ku goosaday al-shabaab mayba noo sabilay October sanadkii 2015 uu la galay baayay hogaamiyaha Daesh Abuukar al-Baghdadi iyadana duqeymo iyo hano la ka weeqa awoodo kooxagaasay Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga JTV Baydhabo